qatar iyo madaxda wadamada Mareykanka iyo Iran oo fariimahan jamaacada isku mariyay warbaahinta halka madaxda wadamada reer Yurub ay ka digeen dagaal ka dhaca bariga dhexe saacadihii ugu dambeeyay magaalada Washington DC ee xarunta wadanka Mareykanka laga xukumo qaasatan aqalka cad ayaa warbixin iyo waliba qodbad dheer waxaa dalka Mareykanka u jeediyay madaxweynaha wadankaas Donald Trump wuxuuna ku bilaabay in marnaba uusan ogolaanin intuu madaxweynaha ka yahay dalka Mareykanka in Iran ay ku guulaysato barnaamijkeeda hubka nuclearka wuxuuna u sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin in waa sida hadalka ku tilmaamay dalka Iran oo uu sheegay inuu yahay dalka isagu martigeliya ama fududeeya in argagixisadu ay haylo kala gadisan ay ka fuliso wadamo badan oo dunida haba u badnaadeen buu yiri bariga dhexe madaxda iyo mas'uuliyiinta wadanka Iran ayaa iyaguna waxa ay sheegeen bogga internetka ku leeyahay qaasata boggooda Twitterka waliba wasiirka arrimaha dibadda uu ku sheegay in marnaba aysan Iran ka gamban doonin in ay iska difaacdo waxa uu ku tilmaamay qataraha kaga imaanaya dawladda wadanka Mareykanka iyo xulafada NATO labada dhinac ayaa hanjabaadooda u muuqata mid saameyn ballaaran ku yeelata siyaasadda dunida iyo waliba dhaqaalaha suuqyada caalamka madaxda wadamada Yurub ayaa iyaguna waxay ku baaqeen in madahadalada ay noqdaan miiska wada hadalada oo noqdo meesha lagu xaliyo dhibaatooyinka jira iyagoo ka digay dagaal ka dhaca bariga dhexe madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa dadka reer Mareykan ama dadweynaha wadanka Mareykanka qodbadiisa ugu sheegay in wax dhibaato aysan soo gaarin ciidamada Mareykanka ama ciidamada Iraaqiyiinta ee la shaqeeya Mareykanka ku sugan saldhigyada lala beegsado weerarada ay ku yaala gudaha wadanka Iraaq dhanka kale dawladda wadanka Iraaq iyo xubnaha baarlamaanka wadankaas ayaa iyagu si guud ugu codeeyay in ciidamada shisheeye waa sida hadalku dhigeen ay hogaaminayso dawladda Mareykanku inay iskaga baxaan dhulka dalka Iraaq labada dhinac ayaa u muuqda in midka kale uu u hanjabayo hase ahaatee waxa xusid mudan in 56 qof ugu yaraan ay geeriyoodeen maalnimadii shalay kadib aaskii la aasiyay General Soleimani oo ahaa taliyihii ciidamada Iran ee lagu dilay magaalada Baghdad kadib gantaalkii uu amray in madaxweynaha Donald Trump madaxweynaha Mareykanku lala beegsado isla markaana siyaasadda guud ee bariga dhexe saameynta ku yeeshay